caruurtu waxay noqonaysaa markaas 48 saacadood gudaheeda isla markii la qaado waxa la geenayaa waxay ku saabsantaa horta waqtiga jiraan hadalka sanadka jiraan moogtahay hadii oo for example jira 14 waxa laga yaabaa institution in la geeyo moogtahay meel oo dhalinyarada lagu haayo hadii cunug jiro maxaa la hayaa 2 sano camal waxa loo geenayaa faamilo oo Barrett's calcium la dhaho meeshaas la geenaa cunug lagu haynaya ilaa oo kiiskan laga soo xalinayo 48 saacadood gudaheedana waxa loo baahan yahay markaas in la diro warqadan oo falqaadka ah oo ku dhacay waxa waay Axmed Xuseen Cali waxaan ahay barnaamij pedagoog kale som modern media oo iga qaaday hadalkan oo ku saabsan arimaha barnaamijka hay'adda barnaamijka sida uu shaqeysano waxa waaye way kala duwan tahay dadka badan oo meesha ka shaqeeyo laakiin badanaa waxa waaye dad oo barnaamij pedagoog ah oo jaamacad ka soo baxay oo waxbarasho iyo maxalada takhasus u leh arimaha caruurta sida uu shaqeysano waxa waaye badanaa waxa noola soo diraa warqad walwal ah oo ku saabsan familada iyo caruurta warqadaas markii noola soo dirino waxa ku qasbanahay ina maxalaha waalidka iyo caruurtii la hadalno oo ku saabsan warqada oo walwalka informationka ka soo baxay ina ogaano wixii qaabkay wax u yihiin iyo sidii familada loo caawin lahaa koogar waxay ku saabsan tahay warqad walwalka wixii ku saabsan tahay badanaa waxa dhicin karta iskuulaadka ama baanaagaha xarunta caruuraha inay soo wacaan cunuga meeshan joogo oo san rabin xaafadiisa inuu ku laabto markii ay weydiinayna sabab xaafadiisa rabin inuu ku laabto waxa laga yaabaa inay soo baxday inay dhahaan cunugan wuxuu ka baqayaa hooyadiisa aabihiisa ama kale walaalihiisa inay isdagaalaan dil xun baa lagu soo sameeyay marka sidaas ay adeed noqoto waxay noqonaysaa wax akid ah oo isla markii u baahanahay inaan soo xalino isla markii waxa rabnaa markaas ina la hadla caruurta iyo familiadii wixii markii hadalkaas wixii ka soo baxa kadib lagu sameeyaa wax go'aan ah oo falqaada marka qaar waxay dhicin kartaa caruuraha jirdilka xun lagu sameeyo ama caruurta maxallaha la kufsado ama waxyaabo xun lagu sameeyo isla markii caruurtaas horta xaafada ma sii joogaan laakiin wixii kiisaska oo iska yar ah oo ku saabsan maxallaha hooyo ay ugu qaylisaa mar walba guriga imaado ama waxyaabaas camal ah badanaa waxa ma ahan wax oo isla markii caruurta lagu dafaayo waraaqda bishii Maris Melinka waxa diray waxa waaye qof walba oo wadankan degan koow xaq uu leeyahay inuu diro laakiin xaqdan waxa sii saaran kuwan oo ka shaqeeya baanaagaha kuwa ka shaqeeya iskuulaadka CQsaha meel walba oo fintle ah markino oo ka doonatid wax caawinaad ah ama kale wax oo wax ku taraysa xagga naaf camal for example xataa lacag ahaan ama wax marka meesha u doonatid hay'ad walba markino oo qofka noloshiisa gacantiisa kula jirta waxay ku qasban yihiin hadii wax walwal ka arkaan familada ama caruurta inay baanaanka u soo gudbiyaan Bishmirings Mailing warqada walwalka ah sharciga oo dhigaya sharciga wuxuu dhigaya waxa waaye warqada walwalka markii la soo diro ilaa maxallaha kiiska ka soo xireyno 3 bilood inaa haysano laakiin sharci ahaan waxa waaye 3 bilood hadii oo kiiska badan yahay waxa waaye 3 bilood kala lagu sii darin karaa waalidahan waxa laga rabaa horta koow inaa hubsan tahay oo og tahay maxallaha caruurtaada hadii aadan daryeelin hadii caruurtaada kalgacayl siisay xuquuqdoodana ay ilaalisay oo wada hadalna dhaxdiin fiican eedin ka dhaxayaan waxa ka baqaysid maahan waayo warqad markii lagu soo diro waxa waa biskuulan oo adiga lagu baranayo iyo information lagu soo bandhigayo lagu dhahayo warqad walwala oo saas ku saabsan baan soo gaartay maxaa ka qabtaa marka waalidahan markaas kulankii koowaad waxa laga rabaa in hadalka dhiibin kartid wixii walwala warqadaas ku saabsan markino oo laga soo diray ina ka hadli kartid dhiibin kartid marka isla markii warqad lagu soo diray maahan ina qofka oo bacdiisi wixiisa duuduubto oo wada qaato waxa waaye kulan bis yariis oo adiga oo lagu sheegayo lagu soo bandhigayo warqada waxay ku saabsan tahay waayo kulamaad badan baa la yeelanaysaa moogta arimaha kuwan hay'adda baanaanka markaas sidaas waxa lagu ogaan karaa wixii oo rasmi ah iyo wixii rasmi ah waxa laga yaabaa qof been inay ka soo dirtay sidii lagu ogaan karno waxa waaye waalidahan adiga marka hadashid la ogaan karaa wax moogtahay iyo iskuulaadka iyo wixii baanaanka la hadlayaan information badan markay soo wada aruuriyaan kadib waxa la ogaan karaa inay waxaan wax ka jiraan iyo wixii aad wax ka jirin sharciga adduunka weynka wuxuu dhigay waxa waaye qofkii maxallaha oo kulan la leeyahay
kulan haddii loo waco oo fintli ay ka socoto wuxuu xaq u leeyahay in loo qabto qof oo maxaa u turjumayo. Marka dhibaatada waxa keeni karto waxaa waaye horta kow fahan la'aanta. Wadan walba wuxuu leeyahay system gooniya, wadan walba wuxuu leeyahay wax u gooniya moogtahay. fahan la'aantana waxay ka imaanaysa waxaa waaye dhaqankii iyo luqadii iyo shakhsiyaadii wixii dhan markino miskeenayaan, waayo laba shakhsi kala duwan waaye. marka caruurtu meeshay ku dhex dhumayaan, ma Soomaali baa ma Norwegian baa ma reer Ingiriis baa maxaa ah example meeshii markay ku dhex dhumaan waxaa laga rabaa waalidkii inay wax ka caawin lahayn moogtahay. culture ahaanka marka dhinacaas ay ka imaanaysaa fahankii dhaqanka iyo wada hadalka markino bulsho dhexgelida camal for example way ka imaan kartaa taasna. su-aasha waxaa waaye maxaa keenaya caruurta in oo isla markii guriga laga qaado sida haday waa soo taabto waxyar waxa keeni kara waxaa waaye kufsiga for example haddii la dhaho caruur walwal laga soo diro la dhaho maxaa la habarta ama odooga cunugan way kufsadeen ama uu soo kufsaday isla markii maxaa la hayay waxa keeni karto in caruurta isla guriga laga qaado ilaa oo kiiskan laga soo xalinayo maxaa ka jiro arinkan marumba masabeenba maxaa ka jira. sida kale waxay noqon kartaa bahdilka oo maskaxiyan oo caruurta guriga aysan uga bixaynin, football training ay ka qayb galaynin, xanaanada mar walba ka celinaysid, luqadna oo isna aqoon. for example haddii uu cunug jiro 5 sano hadal ma yaqaano maxaa la hayay bulshada si loo dhaxgal ma yaqaano, cunugina xanaanada mar walba waa laga celinayay moosan imaanin 5 sano ugu horeysay noloshiisa hadal dhan ma yaqaano. marka waxa laga yaabaa in bahdil lagu sameeyo cunugaas moogtahay oo xuquuqdiisa aanan la ilaalin isla markii hadalkaas la soo ogaado waxa laga yaabaa cunuga marka gurigana laga qaado dilka oo markino qofka maxaa la hayay wax weyn ah u keenayo. horta waxa haddii caruurta maxaa la hayay hadlaan oo la dhaho ay dhahaan waana la dilaa waxay noqonaysaa badanaa in markino su'aalooyin badan caruurta la weydiiyo sidee lagu dilay waqtigee badanaa lagu dilaa, intee u badan tahay dilka, ma guriga ba banaanka markaa joogtid miya, dilka muxuu dhacaa subaxii miya, habeenkii miya, galabtii miya, maalinta dhexda miya. asu su'aalooyin badanaa la weydiinaa caruurta sidii loo ogaado maxaa ka jiro. badanaa caruurta markay dhahaanna waana la dilaa kow horta vital utgangspunkt markaas inaa aamino hadalkay sheegayaan inuu wax ka jiro, waa cunug miska dhahayo waa la dilaa haddii uusan wax dhibaataynaynin. kaba soo qaad waxa laga yaabaa dilkiina san ahayn laakiin wax kale ay dhibaataynayso cunugaas oo caawinaad u baahan yahay moogtahay. marka way dhacdaa taasna. caruurta waa utgangspunkt waxa waaye wax walba dhahaan hadalkooda waxba ka jira haddaysan ahayn dilkaas maahan mooye laakiin waxa laga yaabaa inay wax kale wax ka jiraan. shaqadeena waxa waa markaas inaan soo ogaano wixii wax meesha ka jira. interview badanaa inaan la sameeyo caruurta wixii dil iyo alboole ah waxaas dhan waxa waaye booliiskii baanaan ku isla shaqeeyaan marka sida wax u kala ogaadaan. waxa fiican marka labada waalid inay caruurta mar walba ay ag joogaan ay isfahansan yihiin. haddii xataa la kala tago important thing waxa waaye in ay wada hadal ka dhaxeeyo waalidkii labada waalidba sidii caruurtooda u daryeelaan. caruurta markii xaafadda laga qaado maxaa dhacaya waa su'aash moogtahay. kow waxa waaye marka 48 saacadood gudaheeda waxa u baahanahay wax la dhaho falqaad vetak la dhaho inaa gudaha aadirin karno. waxaan u dirayna waxa waaye kuwan oo filkisna midafo social saakir oo qaabishan waa kuwa oo markino naga sareeyo. caruurta waxay noqonaysaa markaas 48 saacadood gudaheeda isla markii la qaado waxa la geynayaa waxay ku saabsantaa horta waqtiga jiraan hadalka sanadka jiraan moogtahay. haddii oo for example jira 14 waxa laga yaabaa institution in la geeyo moogtahay meel oo dhalinyarada lagu hayo. haddii cunug jiro maxaa la hayay 2 sano camal waxaa loo geynayaa faamilo oo Beret's Capsium la dhaho. meeshaas la geynayaa cunug lagu haynayaa ilaa oo kiiskan laga soo xalinayo 48 saacadood gudaheedana waxa loo baahan yahay markaas in la diro warqadan oo falqaadka ah oo ku saabsan sababta loo qaaday caruurta oo guriga isla markii loo qaaday. kadib waxay noqonaysaa markaas in sheekilsiin la sameeyo wada hadal lagu sameeyo faamilada caruurta la hadlo kadib markaas waxa lagu dhaqaaqin karaa oo la dhihin karaa okay wixii kiiskan ka soo baxay ma aysan ahayn wax rasmi ah caruurta loo soo celiyo cidda. ama kale waxay noqon kartaa aabaha iyo hooyada inay u baahan yihiin wax la dhaho forelderkush. waxa laga yaabaa inuu qofka
xanaaqaysa badan yahay for example sina mastering squishy waxaas inaa loo diro sidoo xanaaqaysa ugu tanbadiyo oo control ugu hayo kadibna waxaa dhicin karta markaas caruurta inaa gurigooda loo soo celiyo waayo badanaa sharciga wuxuu dhigaya waxaa waaye caruurta guriga markii laga qaado inay tahay maxaa lahaayay wax oo kooban oo sidii caruurta gurigooda loogu celin lahay marka baanwashenista waxay ugu qasban yihiin familiyada inay caawiyaan laakiin iyadoo saas tahay midda kale waxay ku saabsan tahay marka wixii oo albooli ah waxaa laga yaabaa in qaab kale loo fikiro oosan lagu fikiraynin caruurtan hadda la soo celinaya eesan ahayn waxaa laga yaabaa in adoption iyo waxaas lagu sameeyo marka laakiin kiis walba sida uu kala weyn yahay uu kala daran yahay waaye marka kiis walba sida uu kala xun yahay ama sida uu kala albooli yahay oo maxaa lahaayay waxana uu kala weyn yihiin marka in sheekaysa badan in lagu sameeyo waaye hay'adda daryeelka caruurtana waxaa waaye magaalo walbaba qaab uu kala shaqeysaa way kala duwan yihiin fushaliya matuu dare isticmaalaan qaabka shaqada moogtahay marka ani waxaa dhihi lahaa waxaa waaye waxay ku xiran tahay kow waxaa waaye adig qofka tahay shaqsi ahaanta tahay iyo saxbahalerkaaga sidaas kula fahantaan waaye wixii marka wax laga baqo maahan waxaa waaye bis wada fahan iyo bulsho dhexgelid waaye ma fahantay wada fahan haddii oday iyo saxbahalerkiina niga dhexeeyo oo wada shaqeyn kartiin waxaa ujeedid waxaa waaye horta kow waalid ahaan waa inaa ka fikirtaa moogtahay ani miyaa danteyda ee tahay caruurteyda guriga inay joogaan oo ka adkaan karo mase waxa dareemahayga bis iska tilfirtay dareemahayga moogtaa dareemahayga miyaa waxa aaraba inaan ku qanco mase waxaa waa caruurta dantooda fiirinaya badanaa markaa ku fikirtid caruurteyda dantooda fiirinaya waxaa haboon oo muhiim ah marka wixii gacantaada ku doonan lahayd oo caawinaada oo waalid ahaan markiinoo kor kuu qaadayo inaa gacantaada ku doonatid moogtahay marka hay'adda caruurta wax laga baqo maahan waa wax oo noloshaada dhan ku jiraya ilaa caruurtaada 18 sano ka gaaraan waa weydiin kartaa waa u tagin kartaa waxaa dhihin kartaa waxaa u baahanahay wax shakhsi ahaan caawinaad ma u tagin karaa ma weydiisan karaa hay'adda caruurta ama baanwaanka waa weydiin kartaa caawinaadda waxaa weydiin kartid waa kala duwantaa moogtahay sidii tarbiyada cunuga markii aa wax dhahdid meel fadhiiso ma fadhiisanayo warkayga maqlayo ugu soo hadal celinaya maxaa sameeyaa taas waa laga caawin karaa kuushashii waxay ku dirin karaan kamuun walbana wuxuu leeyahay maxaa lahayay wax la dhaho laaf tashkiil tilbid la dhaho waxaa laga yaabaa toos caawinaadaas inay baanwaan kuu siinin laakiin inay kuu gudbiyaan hay'ad kale markiina oo kasii hooseysa oo waalidka oo barta ama kuushashaali waxaa siisa soo shakhsi ahaan waa tagin kartaa waa weydiin kartaa caawinaad iyaga hadday caawinaad ku siin karin hay'ad kale ku gudbinayaan qof kale ku siiya horta mar walba waa inaan ku fikirnaa maxaa normal ah caruurta markii oo la korinayo maxaa normal ah normal ahaan waxaa ognahay for example caruurta markay jiraan 3 sano ilaa 6 sano ka gaaraan camal inay xoogahoo dhaga adeeg maahan laakiin self-standehata lagu dhahaa Soomaaliya inuu iska dhigo qof maxaa lahayay go'aan leh inuu iska dhigo qof oo maxaa lahayay wax asiga samaysan karo moogtahay anaga taas Soomaaliya ahaan waxa uu qaadanaa inuu cunugan dhaga adeeg sameynayo barashada markii aan wax nal barayo waxaan la soo baray inay tahay for example caruurta 3 sano ilaa oo 6 sano inay tahay waqti oo ku jiro inuu iska dhigayo qof shakhsiya oo go'aan gaarin kara marka waalidka waxa laga rabaa inuu meesha ku taageerin lahay haddii asigana maxaa lahaay tiisa ku istaagsanaado cunugana tiisa ku istaagsanaado markii isfahan ma ka dhacahay meesha for example adoo ku dhaho example ana soo qaada waxaa rabaa inaan maxaa lahaay film fiirsado helg waaye kolkashu ilaa kolkota waxaa rabaa film na fiirsado waalid ahaan adigina waxaa og tahay mar walba kolkashu meesha lagu gaaro inuu jiifanayo cunuga 3 sano ama ilaa 6 sano jiro moogtahay taada hadda ku istaagsanaatid asigana tiisa ku istaagsanaado oo wixiina escalating ku dhacaan moogtahay asiga wuu diiday wuu buuqay maxaa lahaay wuxuu tuuray banooni remote-kii qaatay galaaskii qaatay wixii dhan meeshii waxa buuqa ka qaatay moogtahay waxa laga rabaa marka waalid ahaan inaan fahantiid inay tahay cunugan wuxuu soo gaaray sanadkii oo iska dhigin lahaa qof shakhsiya go'aan jecel yahay inuu qaato inuu poverty ku sameeyo noloshiisa waxaa dhihi kartaa markaas haye haddaa ratid kolkashu ilaa kolkota filmna fiirsatid waxaa kugu daraya jiifkaaga nus saac laakiin berito le waqtigaagii ajiifanaysaa marka waxaa dhacay meeshaas wada isfahana dhacay moogtahay communication fiican
mooy dhagaadeeg caruurta kasma ka ahan dhagaadeeg inay sameeyaan laakiin waxay isku dayayaan inay noqdaan qof shakhsi oo go'aan gaarin kara waalid ahaan adiga laga rabo markiina fahmi kartid cunugan muxuu u baahan yahay iyo sida uu dhaqmi lahayd aqli hadii ku dhaqantid iyo maxallaha gorgortan waa taqaana qofku markii oo wax soo gadanayo koro ka bilaawaya kadib waa la gorgortamaya ilaa wax la isku raaco mogtahay caruurtu waxay gaareen marka sanadkii ay gorgortami lahaayeen diidayaan wax laakiin ma ahan diidmo waxay ka tahay bis zon strict grensaha naabayaasha Soomaalida waxa ku talinaya waxa waaye caruurtooda inay maxallaha ogaadaan ina maxallaha anim statistic la fiiriya mogtaa badana waxaan loo gaar waxa waaye badana inay Soomaalida markay isguursadaan ay kala tagaan oo family kale ay kala maxallaha yeeshaan mogtahay waxa uu talinaa waxa marka familada kala taga ama familada isla joogaba mar walba inay xiriir ka dhaxayaan labadoodaba xagga aabaha iyo hooyadaba inay xiriir ka dhaxayaan ay wax isku raacin karaan waayo mar walba inay fiiriyaan waa caruurteeda maxaa u dan mooye inay fiiriyaan maahan ani maxaa i dan leh dareemahiisa iyo habarta dareemaheeda geesina u dhigaan ay fiiriyaan waa caruurta maxaa u dan leh iyo dareemahooda sidee u ilaalin karnaa taas markii qofku ku fikiro asiga dhan focuska waa iska soo jeedinaya wuxuu u jeedinaya waxa waaye caruurta hadii aad jeceshahay inaad fahanteed cunugaaga iyo maxallaha tarbiyada iyo qaabka ay isku wada fahmi lahaadeen inaad doonatid wixii waxbarasho oo cilmi hadaadan u lahayn gacantaada ku doona cilmigaas qofkii maxallaha ayaa ogtahay inuu wax soo bartay inaad kala hadashid ina maxallaha markii oo bulshada hooyooyinka iyo aabaha ee dhaxdooda markii ay isku kulmaan ha ka hadlaano maxallaha tarbiyada Norway qaabkay u dhigmataa maxaa u baahanahay anagina faano markii qofku badana uu ka hadla arinkaas wuxuu wax fahmay waxa waay markaas ani gurigiisa ku dhaqmo waxa ina wax ka bedelo waay ma fahantay dhaqanka hadii sidii wax looga bedelna waxa waay badana ina bulshada isku imaadaan oo ka hadalno dhaqanka guriga ka jiro maxaa fiican